السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وادي السلام أصحابتا كحولان هجاكتي في فضل دعوة هتذكر في الشانل فضل سبسكرايب صار سي اي كوسو قادان مقالة يورك حسابا هلكنا سوكرينو حتى تهرونو لو جوجتي لايك صار وشكري أصحابتا دا سي اي كولا داودان ورك حقيقة دا هلكنا سوكرينو aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socda Galbeed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa dadka faaqiida siyaasadda waxay ka falceliyeen arrinkii uu kala shalay ku dhawaaqay dowladda Mareykanka ayaa war ka soo saartay booqashada Ilhan Cumar daawadayaal intaas oo qodobada warkayga doorkaroon kana diyaargarooba qodobadaas qodobo kale oo faahfaahsan hagaag aan ku bilaabay sida horudhaca wararkayga aad ku maqlayseen wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in doorashooyinka soo socda ee Galbeed iyo Ceelwaaq ay yihiin kuwa sharci darro oo baalmarsan sharciga jaynta doorashooyinka dadban ee ay saxiyeen labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda dowladda federaalka Soomaaliya wareegtadan oo lagu socodsiiyay madasha wada tashiga qaran iyo gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka ayaa lagu faray in la xushmeeyo heshiiska 17 Sebtembar 2020 iyo habraacyadii kulli faaqana ay xubnaha madasha wada tashiga qaran kala saxiixeen 1 Oktoobar 2020 7 May 2021 qof lagu soo doortay hana khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay waafaqsan heshiiska 17 Sebtembar 2020 sidaas darteed kama qayb qaadan karo doorashooyinka gudoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wada tashiga qaran si waafaqsan heshiiska 17 Sebtembar ama uusan soo saarin baarlamaanka koobnaad sharci waxa ka bedelaya xeerkii baarlamaanka labadiisa aqal ay hor wansixiyeen ayaa la yiri wareegtadan madaxweynaha ayaa tilmaamay in wax ka bedelka heshiiska 17 Sebtembar iyo habraacyadii kulli faaqana ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib uga wada xoojoodaan xubnaha madasha wada tashiga qaran isagoo faray inay degdeg isugu yimaadaan si hal dhameystiran loogu helo kuraasta 60 ah ee ku aastaysan Galbeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay in la sii dardargeliyo doorashooyinka loo madlan yahay ee gudoonka labada aqal iyo doorashada madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan qoraal la soo dhigay bogga rasmiga ee Facebook ay ku leedahay madaxtooyada Puntland kaasi oo ku saabsanaa kulankii u dambeeyay ee madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash uu la qaatay golaha wasiirada ayaa waxa ka dhashay farcilin xoogan qoraalka bogga madaxtooyada Puntland la soo dhigay ayaa lagu yiri madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash taasi oo iftiiminaysa wax walba sidii hore yihiin xilli uu Karaash goor sii horeysay uu sheegay in xulka u sareeyay maamulkaasi kala wareegay madaxweyne Dani oo ku sugan magaalada Muqdisho sidoo kale waxa lagu yiri qoraalka waxa uu shir gudoomiyay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada oo toddobaadkan looga hadlay amniga guud xaaladda dekada Boosaaso dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Ufayn Qardho iyo Eyl iyo qodobo kale dadka kala duwan oo ka falceliya qoraalkaas waxa qaarkood la yaab ku noqotay in Karaash loogu yeero madaxweyne ku-xigeenka halka kuwa kalena ay sheegeen in markii horeba ay ahayd ciyaar siyaasadeed la ogaaday wax u socdaan annaga wax aragnay soo asagii lahaa Puntland ana la wareegay ayuu yiri mid ka mid ah dadka karagti dhibtay qoraalkaas sidoo kale mid kale ayaa yiri dariiqa saxda ah ayaad haysaan madaxweyne ku-xigeenka shaqadiisa ha qabsado madaxweyne ku-xigeenka saas laga rabaa adeerow ilaali sharafta Puntland oo ayaysan ku lugoynin rag waqtigoodii dhamaaday oo Farmaajo ka kow yahay ayuu yiri mid kale asaguna kamid ah dadka ka falceliyay arrintan Puntland aqliga shaqeeya caadifadii ma shaqeyso Puntland wax walba sidii loo qorsheeyay ay u sii socon doonaan Puntland waa dawlad leh dastuur iyo kala dambeyn dawladnimo arrimaha ayaa imaanaya xilli uu Axmed Karaash ku eedeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciidani oo Muqdisho ku sugan hadda ololaha doorashadiisa madaxtinimada Soomaaliya inuu gudan waayay waajibaadkiisa dastuuriga farayay mar haddii madaxweynuhu uusan si kumeel gaar ah u gudan karin waajibaadkiisa dastuuriga sida ku cad qodobka 11 ee dastuurka Puntland farqadiisa koowaad dhammaan mas'uuliyadaha iyo waajibaadka dastuuriga waxay si meel gaar ah ugu wareegayaan
una gudanayaan anigoo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland si waafaqsan dastuurka shuruucda iyo qawaaniinta kale ee u degan Puntland ayuu yiri Axmed Karaash. Haddaba qodobada warkayga dibadda naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo war ka soo saartay booqashada Ilhan Cumar oo ka tirsan Koongareeska ay ku tagtay gobolka Kashmir ee qaybta Pakistan ayaa sheegtay in booqashadeeda aysan ahayn mid rasmi ah ay wax ku ogtahay. Kamid ah la taliyayaasha xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, Derek Chollet ayaa yiri tani waa booqashadeeda aan rasmiga ahayn marka laga eego isbedelka ku yimid siyaasadda dowladda Mareykanka. Booqashadeedu waxay shaqo kuma lahan siyaasadeena midna. Goorsii horeysay shalay dowladda Hindiya ayaa cambaareysay booqashada Ilhan Cumar ee 5 maalmood ay ku joogayso Pakistan. Hindiya ayaa sheegtay in booqashadeeda ay carqaladeynayso madax bannaanida dalkaas. Waxay sidoo kale booqashada Ilhan ku tilmaantay mid maangaabnimo siyaasadeed ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya Arindam Bagchi ayaa yiri waxay booqatay qaybo ka mid ah Jammu iyo Kashmir oo haatan si sharci darro ku haysta Pakistan. Haddii siyaasi walba uu doonayo inuu ku dhaqmo siyaasadiisa maangaabnimada leh waa shaqo u taala, balse waxay carqalad ku tahay sumcadda geygana. Ilhan Cumar oo xubin ka aqalka wakiilada Mareykanka ee Koongareeska ayaa booqasho ku tagtay gobolka Kashmir iyo qaybta ay Pakistan ka maamusho, laakiin arrintan ayaa qabsatay warbaahinta kadib markii ay cadho ka muujisay dowladda Hindiya. Tani ayaa markii uu soo baxay warka ku saabsan in Ilhan Cumar ay booqanayso Kashmir. Qaar ka mid ah shacabka reer Hindiya ayaa arrintaas walaac uga muujiyay baraha bulshada. Qof ka mid ah dadka ka falceliyay ayuu yiri siyaasiyiinta wax kala qaybiya ee sida Ilhan Cumar waa in laga hor istaago inay tagaan meelaha xasaasiga Kashmir. Waxay ka soo horjeesatay Hindiya xaqna uma laha in ay xubin ka sii ahaato Koongareeska Mareykanka. daawadayaashada qiimaha qaayaha iyo qadarinta iyo xishmadda naga mudanow intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa war waxaan ka haynay Soomaalida iyo geeyada kale tan iyo kulanti dambe daawada halkan waa Hagaag TV fadlan daawada dadka cusub channelka fadlan subscribe saar si aad u daawato muuqaalada aanu soo gulnaa dad hore noo joogteen awaad ku maasatay like saar una sii shirkada asxaabtaada doonaya wararka noocan ah ee xaqiiqda ku saleysan tan iyo kulanti dambe waa bahda Hagaag TV leh tan iyo nabadgelyo.